Soomaaliya waxaa xilligan ka jirta dawlad federaal ah taas oo sanadirsatay siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaalida ayaa aragtiyo kala duwan sanad kadib ka bixiyay waxyaabihii u qabsoomay iyo wixii ay ku guuldareysatay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Xaaji Maxamed Yaasiin Ismaaciil oo kamid ahaa musharaxiintii marar kala duwan isu soo taagay jagada madaxtinimada Soomaaliya balse ku guuldareystay oo uu waramayay TV-gan Home Cable ayaa waxa uu aad u dhaliilay dawladda Soomaaliya waxaana uu sheegay in wax qabad la'aan iyo waliba cadaalad darro ay dawladda haraysay isagoona sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay hoy u noqotay dad sida uu hadalka u dhigay heebta madaxweynaha iyo waliba ehelkiisa ka soo jeeda. xaqiiqatan waxa lagu farxay dalka gudihiisa doorashada ugu horeysay in lagu qabto wax wanaag ah ay lacaga shisheeye oo dibadaha ka yimid in la isticmaalay oo codadka lagu iibsaday baraana waxaan aaminsanahay magaca Villa Soomaaliya in laga bedelo oo madaxtooyo un kaliya la yiraahdo laana malaha aragti Soomaaliyeed mare waxaan moodaa hal family hal ehel oo kala mesela inay iska batahayba ninka cuntada ii karanaya uu reerka yahay kabadeerigu reerka yahay waardiyaasha guriga jooga uu hal reer yahay askariga daba socdo igala taagan oo sarkaalka uu qoyskii yahay muxuu ahayd agaasimihii guud oo madaxtooyada uu reerka yahay agaasimihii muxuu ahayd protocolka uu reerka yahay afhayeenku reerka yahay kii maariidu reerka yahay marka waxa weeye ninka Soomaaliga oo yimaada wuxuu dareemayaa qariibnimo dareemaya. Xaaji Maxamed Yaasiin oo sidoo kale kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaalida iyo waliba madaxduba ay dad gooni ah daacad u yihiin kuwaas oo ku tilmaamay inay ku xisba yihiin madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud isagoona baaq u jeediyay. dhibtu waxay ka socotaa shacabka Soomaaliyeed laana waxa weeye ummadu waliba waxay heshaa madaxda ay heshaa walaalkii Xasan Sheekh Maxamuud waa nin marka isaga la fariisato intaanu hadda qiinay xaqiiqatan madaxweynaha noqon in aad u akhlaaq fiican u hadal gaaban maskaxdiisu araadiisa ra'yigiisu ay fiican tahay laakiin marka qaar ku waxay sharahaba war saaxiibka arna wala sixran admu sixran yahay. Maxamed Cusmaan Xabiib, Home Cable TV, Nairobi.